السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا شبكة الريم جروبيز وشبكة واحدة لغة في الصومالية اللي قبرت علم ICT ومعلق جمال في سؤالات قاطن عشرة وريم جروبيز @gmail.com. عشر كنا مانتا how to fix هذا وحين أول أبوك برنشرني استلو هagaajiyey errorska كمبيوتر sida enable to play this video iyo kuwii horeba. عشر maanta waxaynu ku baraynaa video yar oo halkan soo dhigay ayaa markaan saacado fur wuxuu oranayaa Windows Media Player cannot play this file. Videogan wuxuu ku dhisan yahay sidaynu xagga sare ka arkaynaba .mkv buu ku dhisan yahay mkv oo maaha mp4 ama maaha dhammaan playerska kale ee aynu hore u aragnay. marka .mk4 markii la programinayay Windows Media Player-ka laguma soo xidhin oo lama odhan isku bilow. marka anigu ma haysto player kale sida VLC wax noocaas ma hayo. sidee baan ku daawan karaa ama sidee baan video galka oo TEDx-ka ku daawan karaya? hadaba si yar easy ayaan ku daawan karaynaa. marka hore waxaad soo furaysaa waa notepad baad soo furaysaa. notepad markaad soo furto si loo wada arkan xaggan soo dhigayaa code yar oo codeskii hore aynu dhiganay ayaad qoraysaa HTML-kiya. codeka kale wuxuu noqonayaa waa embed src. waxaad soo qaadanaysaa waa magaca playerka ama waxaad doonaysaa inaad bilowdo ayaad copy odhanaysaa. halkan maad qon yar ku paste garanaysaa. markaad ku paste garayso waxaad raacinaysaa wuxuu ahaa nooca type-ka uu ahaa mkv mp4 noocu ahaa. mkv buu ahaa innaga midna waan soo xidhaynaa. intaa markaan dhamayno waxaan save garaysanaynaa desktop ku save garaynaa. okay marka .html baad raacinaysaa halkii oo mkv ahaa .html baad raacinaysaa si uu noqdo web page. waa ka xaggan noo soo istaagay xaggan buu yimi. imika labadana waa isku mid aan kan hoos noo soo dhigo. imika kan haddaan furo wuu diidayaa wuxuu odhanayaa wax noocaasa ma furmaayo the player may not support. marka ma taageersana ama ma furaayo. marka laakiin ka dhigo isagoo maxay ahayd walahi web page ah aan ku dhufto waa ka xaggan ka bilaabaya. daawashadii halkaas ka bilaabaysa waad arkaysaan. marka waxaa dhici karta waad kordhin kartaa nooca sidaskiisa waad kordhin kartaa. waxaad u kordhin kartaa adigoo odhanaya oo width ka dhigan karaya around 200 height kana ka dhigi kara. waxaad ka dhigi kartaa 400 ma ka dhig waad save garanaysaa. kanun baad dadna reload odhanaysaa. kanun baad saa kordhinaysaa height-ka width-kan yar kordhinaynaa 600 ma ka dhigaynaa. kana reload baan odhanaynaa deedna. waa kaa inoo balaadhay. halkaasaad caadi uga daawan karaysaan. uma baahnidin inaad ku furtaan player kale iyo inuu noqdo hadduu doono waxyaabo kale sida VLC oo kale inaad ku furtaan uma baahnin. waad ka maarmi karaysaan video aad doonaysaan mkv wuxuu doonaha noqdo kaasaad aad ku furi karaysaan ku doonaha noqdeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.